السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo waan iswada karaa maanta waxaan rabaa inaan idin dhaho soon wanaagsan meel kasta aad joogtid maanta waxa waaye sabti and insha allah sabti soo socota ama axada soo socota marka videogayga idin soo gaaro anakoo soomanay noqon doonta insha allah biisni allah haddii uu ilaahay naf noo gaarsiiyo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyar ramadaankaneeto maxaad samayn kartaa si aad naftaada ugu dadaashid of course naftaada qof ahaan kulligaaga soo jirkaaga iyo maskaxdaada way isku xiran tahay so way wanta inaan ku dadaalno waa ognahay ramadaankan inuu aad iyo aad uga duwan yahay soomankii hore lasoo dhaafay taasoo u sabab ah coronaviruska iyo social isolationka ama dadka laga haray laga fogaaday because cudurka si loo faafinin so midda weyn hadda waxa waaye anaga camal dadka oo maraykanka ama yurubta joogaan soonka waxaana dareysii jira waxay ahayd masaajidka salaada taraawiixa bulshada oo isla afureyso masaajidkeena wuxuu suubiyaa wax oo community iftaar la dhaho so weekend kasto communityga dadka magaalada degan dhan oo muslimkay waa isku imaadaan si ay iskula afuraan because wadanka waa joognaa so wadanka gaalada sida waxa ma aha wadanka muslimka camal oo bisha soonka bisha ka horeysa waxaa la bilaabi jiray soo dhaweynta ramadaanka oo waxaa arki jirta nalalka iyo decorationka iyo waxaas dhan markii wada muslimku nooshahay laakiin wadamada gaalada waxaas ma ka jiro so sidaas darteed waxa oo soonka na dareysii jira waxay ahayd masaajidka للأسف هذا because of cudurkan faafay masaajidka wuu xiran yahay so sanadkan ma jiraayo taraawiix sanadkan ma jiro community iftaar tahajudki ma jiro iyo waqtigi ilmaha oo masaajidka habeenkii ku dhafri jireen ama dadka oo masaajidka u guuri jireen tobanka ber ugu dambeysa oo bisha sooqaadka waxaas dhan sanadkan ma jiraayo intaas aad iyo aad ay dadka ugu adag tahay dad badan oo waxaa jiraan dismoral dareensan oo sad ah because waxa waaye awalba wax yaran haysan haddana wax yar ayaan sii weyne so that's hard aad iyo aad ay taas ugu adag tahay dadka laakiin still adoo wax yar haysatid waxaaga yar sidee uga faa'iideysan kartaa waaye so ma haysanin masaajidkii iyo environmentigii ama bulshadii oo na dareensiinaysay ma jirto sanadkan dadka ma la furi karni ehelkeena maybe inaa la furi weynaa dhici karto cudurkan dartiisa so laakiin waxa waaye inaa still isku dayno inaa anaka energygeena kor u kacino inaa anaka ku dadaalno maxaan samayn karaa soonkaneeto si make it the best out of it so soomaalida laga dhehe maraykanka waxay dhahaan if you have a lemon make a lemonade so hadalkaas macnihiis waxa waaye haddaa liin haysatid aadan aqoon waxaa kusoo bisid liinka samee juice ka samee so basically biir sokor iyo biyo ku dar xab right so macnaheed hadalkaas waxa waaye wixii haysatid ku shaqayso you know ama carabta haddaa reer carab ah waxay dhihi jireen cala addi lixaafak midrik lig so bustaaga haloo la eg yahay lugahaaga fidi hadalkaas macnaheed waxa waaye still wixii like work with what you got like waxaa haysatid ku shaqeey ku samee waxaa ka samey kartid right I'm sure wuu jiraa masala mahmaha oo soomaalina way jirtaa oo taas lamid ah so waxaan kaa filanaa dadka oo caawiyaan inay hoos igugu soo qoraan ama email ii soo diraan mahmahda oo lamid ah mahmahayada aan hadda sheegay so basically waxaa rabaa waxyaabaha aan sameyn karno marka waxa waaye it's very important horta inaan jirkeena ku dadaalno soonkaneeto so jirkeena sidaa ugu dadaalay like physical activity hadda kulligan guryahan fadhinaa xoryaan camal dhaqdhaqaaqi wuu iska yaraade aad iyo aad ay daruuri u tahay inaa elementeeno inaan socono inaan guriga ka baxno inaan fresh air qaadano guriga ka bax macnaheed maxaa ma aha bulsho dhexgal you just need inaad soo socsocotid xaafada kastoo kusoo socsocotid si ah air usoo qaadatid maalintii aad iyo aad ay u dheer tahay haddaa guriga lay fadhisid aad iyo aad ay dhib kugu noqonaysaa like haddaa kastoo baxdid halkoo saacaa soo socsocotid waqtina waa soo dhuminaysaa naftaadan waa u dadaalowsaa and also midda kale oo inaan ka fogaana ay tahay very important maalintii dhan ha jiifin maalintii dhan jiifka jirkaagu dila you know afarta wax oo jirka qofka u fiicneen waxaa ka mid ah jiifka badan jirkaagu baabi'inaa so maalintii dhan ha jiifin dhaqaaq socsoco haddii aad banaanka u bixi karin whatever reason kaaga maybe neighborhood fiican inaadan deganayn groupka elementary ama ku exercise gare internetka iyo video televisionka waxay qabaan
programyaal badan oo exercises ah ka faa'iidayso kuwaas isticmaal si aa ugu exercise garaysid ama ugu jimicsatid laakiin gurigan ha fadhin maalintii dhan ha iska fadhinin all day hana jiifka badan kuma fiicna waxyaabaha oo laga naheeyay ka mid tahay jiifka badan inuu korkaaga dilaayo midda kale oo actually oo diinteena eena dhehaysa inaan ka fogaana waayo oo also jirkeena dilaayo waxwaaye cuntada badan so maanta dhan waa soomneed waa afura inaa la dhaho guriga wixii yaal dhan yaa la karinin oo because cuntadaas badan kuma fiicna weligeed kuma fiicneen like hadda especially sanadkan kuma fiicna sababta oo ay tahay waxa waaye shaqadii badnayd aa qaban jirta ma qabanaysid ma guboosid waxaa cunaysid so maanta dhan markaa macmacaanka isku daldashid markii oo waxyaaba oo saliid lagu dudubay aa cunno aana gubaynin nooma fiicna midda kale anaka waqti oo waxaan ku jirnaa sensitive ah so hadda cuduraa socdo cudurka wuxuu ataagareeyaa qofka oo immune systemkiisa daciif yahay qofka oo manaacadiisa daciif tahay so markii oo cuntada oo healthiga ah like markaan biyo badan cabno oo qudaar iyo faakaha aa cunno immune systemkeenu adkeena immune systemkeena markuu adag yahay wuu ka hortagaa marka bakteeriyada ama cudurka ama viruska oo rabo korkeena inuu soo galo janis ma helayo inuu korkeena ku noolaado laakiin haddaan cunayno cuntooyinka oo bakteeriyada ka dhashtaan sida sokorta badan sida cuntooyinka oo saliidda lagu dudubay ama subaga then immune systemkeena daciif uu noqonaa ma awoodayo inuu ka hortago viruska so it's not cuntada badan ama cuntada la dudubo iyo sokorta aslan nooma fiicneen laakiin sanadkan aad iyo aad inaan kaga hortagno waa cuntadaas aan yareeno because of viruska ma rabni inaan viruska janis siino inuu jirkeena soo dhex galo and then uuna attack gareeyo because immune systemkeena ama manaacadeyna aad iyo aad daciif u ah so taas ka fiirso wax oo na dhibaan oo korkeena u fiicneen waxa waaye cuntada badan jiifka badan iyo hadalka badan and then midda saddexaad aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye dadka oo tubaakada ama dadka sigaarka cabaan shiishada cabaan dadkaasaytona waxa waaye hadda sanadkaanayt inay aad iyo aad uga fiirsadaan because maanta dhan waa soomneed and then sigaaraa ka bilowday okay so waxaan ognahay at least cilmigu wuxuu noo sheegay dadka sigaarka iyo shiishada dhuuqaan inuu feeraha kaa dilo aan dadkaas badankood inay cudurada oo xabadka ama feeraha ama lungiska galaan inay qabaan so markii oo aad sigaarkaasay tacabaysid aan ku noolnahay waqti oo virus zaaid ah socdo just feerahaaga ma awoodayo inuu ka hortago ama iska difaaco cudurada because of toxinka ama sunta aad gelinaysid so that's very important inaa ka fiirsatid since aad sooman tahay 18 saac maalintii do you really need to qasab miya inaa sigaarka sii cabtid baahi saas ma u qabtaa and waa ogahay aniga inaa wax oo jirkeena inuu u barto tubaakada iyo waxa ay sigaarka iyo jirkeena u badanahay and I know inaa madaxa aad iyo aad ugu xanuunay maalinta koobaad aa soontid madaxa kor muu qaadi karaysid waa la socdaa waa ogahay laakiin maalinta koobaad madax waa loo xasuubi kartaa so weekend it's a good time inaa tartiib iskaga goosid si oo jirkaaga ooga baxo run ahaantii waxaa la rabay 2 bil 3 bil ka hor inaa bilaawdid si oo jirkaaga ooga dhaqmo tartiib si oo madax xanuunkaaga u yaraado iyo xanaaqaaga iyo irritationkaaga but haddaadan suubinin still jacnisaa haasataa weekend inaa tartiib u goosid and then bisha ramadaanka markii maalinta koobaad still madax xanuuna ku haanaya laakiin inaadan cabin sigaarka oo adkeysatid hadan maalinta labaad uu ku hahaa maalinta saddexaad uu ku hahaa like by maalinta shanaad okay aa noqonaysaa waa iska roonaanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa waa kasii fiicnaanaysaa laakiin isku day markii korkaaga ka dhaqdid bisha soonka haddana maalinta iida kusoo noqonin like tacab khasaaro waayo markaasayto because meeshii haddana ka bilowday wax faa'iida aa samaysayna malaha saas so markaas soomeyno waxa waaye bisha ramadaanka ma aha cunto leh inaan ka soomno inaan bad habits ka soomno waaye dhaqanka xun inaan ka soomno waaye so sigaarka xanta namiimada waxyaabahaas dhan dhaqan xumo waaye aan naqaano aan aad iyo aad ugu fiicannahay laakiin markaan isku dayno bisha soonka aan ka fogaano waxaaseyto it's important inaan goolkeena ka dhigno sidee aan kusii wadi lahay si oo aan dhaqan xumadii ugu noqonin because so taas is very important
and then mid ugu dambeyso and ugu important garaysan of course waxa waaye mental health because wax kasta aan ka hadalna anaka caafimaadka maskaxda inaa kusoo xirna waaye caafimaadka maskaxda waxa waaye sanadkan sida koodi idiin sheegay dad badan oo dismoral ahaa jiraan because of waxyaabaha socda coronaviruska iyo but we don't want inaa still waxyaabaha aan suubi karno waxa waaye this is a good time badanaa waa ka hadlaa like exerciseska iyo you know maskaxda fikradda xun sidee maskaxdaada uga bedeshaa waxyaabaha dhan hore uga soo hadlay but I want door caawa inaan waxa saaro culeyska diinta okay diinta is very very important and bilson qaada ku jirna so haddii aa wax suubinaysid si aa maskaxdaada u caawintid waxa waaye inaa waxa suubisid diinta inaa ku xiratid qur-aanka inaa akhrisatid ilaahay wuxuu dhahay faqultu istaqfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara so ilaahay wuxuu dhahay استغفر الله لها استغفار ويديستا عفس ويديستا وحواي دم بالآفة إلهي دم بالآف واهي قفكي إلهي أدونكي سنة وقعنت وتاكتو أو إلهي عفي له إلهي وصوب مكسور القاطر أمسو عليها أيو so this is the time إن استغفارك بطسنو this is وقتي أو حواي صلاة بطسنو قرآنك أقرسنو وحسوب إنه صدقة بحسنو because even though زاد كما آدي كرني وحن سمي كرنا صدقة waa baxsan karnaa weli quraan badan aqri karnaa waxaan sameyn karnaa inaan ilaahay u mahad celino wax badan so waxyaabo badan aan still sameyn karna aa jirto anakoo banaanka u bixin oo bulshada dhexgalin oo still ilaahay noo dhaweynayso oo nagu xirayso so waxaan rabaa inaa just waqtigaanayto oo bisha ramadaanka ah inaan ka faa'iidaysano oo even though waxyaabo badan aan waasanahay waxyaabo badan aan haysan jirnay aan waasanahay sida masaajidka gurigeena masaajid wuu noo noqdaa familka dhan waa isla dukan karaan inaa masaajid camal soo salaad kasta inaa la isla wada dugto is very important waxaan sameyn karnaa inaa galaasyo qaadano internetka hadda waxaan arkaa maalin kasto galaasyo badan oo like yaqiin institute galaasyo suubisaa alqalam galaasyo suubisaa maftax institute galaasyo suubisaa oo diini ah kulligooda freena waaye so galaasyadaas inaa qaadatid oo ka faa'iidaysatid oo bishanayta at least hal suurad tafsiirkeedan barana haddaa dhahdid ilaahu qul acuudu birabbi nnaas ma baratid suurad yar waaye 5 aaya ah aan cilmi badana ku dhex jiro so hasha suura haddaa baratid wax faa'iido weyn aa soo bisay because halkaas tafsiir aa baratid wuu kula joogaa weligiis wuu kula joogaa and then not just inaa baratid ba ku dhaqan that's the other thing you know markaa wax baratid inaa ku dhaqanna waaye ma aha inaa just iska barano oo dan shalf iga saarno okay سورة الناس تفسير كذا مبرتاي ناوكو أقمع okay it's very important أنا هذا كذا كسور دهيرينين هلا هسرمات إن دين سو جارسيو دمان أسرة دول ناس وذكرام حدين ليهين someone accent كسوما نبات إعافيمات هايلوبن إن فيديو شير subscribe إن الهديد أو لو بدأت تتكالبا because it's very important إن la gaarsiiyo walaalaheena cilmiga iyo wixii faa'iido ku jiro oo internetka laga helo insha Allah waa mahadsantihiin waa intaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.